aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Iiraan iyo guud ahaan bariga dhexe. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Tasniim ee Iiraan laga leeyahay in qaybta warfaafinta ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay sheegeen in weerarkii ugu dambeeyay ee mowjadda 73aad ee howlgalka ballanta runta ee afraad ay ku dileen in ka badan 200 oo qof kuna dhaawaceen in ka badan 1973 qof. Sidoo kalena ay burbur baahsan u geysteen qaybo kamid ah xaafado kamid ah magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil. Sidoo kale wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa sheegtay iyada oo soo xiganaysa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan in taliyaha ciidanka cirka Iiraan Sayid Maajid Musawi uu yiri waqtigan xaadirka ah la hadlayo waxaan idin xaqiijinayaa in samada Tel Aviv ay geesiyaasha Iiraan ku iftiiminayaan samada Israa'iil gantaalada Iiraan halkaas ay ku bartilmaameedsadeen dhulka ay xooga ku haystaan ee waqooyiga Falastiin. Taliyuhu wuxuu intaasi ku daray in Iiraan ay adeegsan doonto taktiik cusub iyo gantaalo badan oo kale oo markaasi ku qarqin doonaan oo mowjado isxigxiga dhulka ay Israa'iil xooga ku haysato. Wuxuuna intaasi ku daray in beegsigoodu uu yahay saldhigyada Mareykanka gobolka iyo waliba Israa'iil xarumaheeda istiraatiijiga. Sidoo kale Iiraan ayaa waxa ay iclaamisay inay adeegsatay gantaaladeeda Qatar iyo Cimaad gaar ahaan mowjadii 73aad waxayna ku bartilmaameedsadeen saldhigyo dhanka cirka ah ay leeyihiin Israa'iil iyo waliba markabkii shanaad ee ciidanka badda Mareykanka. Sidoo kale mas'uuliyiin Iiraaniyiin ayaa waxa ay sheegeen in nidaamyada weerar iyo difaac oo gudaha Iiraan aad loogu horumariyay ayna xaqiijin doonaan guulo waaweyn oo jihada dagaalkana wax badan ka bedelaya. Iiraan ayaa caalamka oo dhan ku riday lama filaan kadib markii ay ku tuurtay gantaalkeeda blaastiga ee ridada dhexe dhanka Diego Garcia oo ku taala masaafo fogaanshaheedu uu yahay 4000 oo kiiloomitir. Waana tallaabadii ugu horeysay nooceeda ay qaaday Iiraan gaar ahaan fogaan ahaan meesha ay gaari karto. Macluumaadka la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in awoodaha gantaale Iiraan ay leeyihiin markii hore ay gaarayeen 2000 oo kiiloomitir. Haddana midan ayaa keentay isbedel istiraatiiji oo in badan caalamka kamid la anfariiray horumarka ay sameynayso Iiraan iyo waliba fariimaha ay dirayso. Waxaana loo nisbaynayaa gantaalada Khorramshahr 4 aragti ahaan inuu awoodo inuu gaaro fogaan intaan la eg culeyskiisana lagu qadiro 1500 oo kilogram. midan oo albaabka u furaysa in dib u qiimeyn xaqiiqi ah lagu sameeyo awoodaha Iiraan ee gantaalada balaastiga dhanka kale sarkaal Iiraani ayaa Al Jazeera u sheegay maanta in Iiraan aysan mas'uul ka ahayn kana dambeyn weerarka gantaale lagu qaaday saldhigga military ee Diego Garcia oo ku yaala badweynta Indiya. Diidmadan Iiraan oo inay ka dambeysay weerarkani ayaa yimid kadib markii jariirada Wall Street ay warisay jimcihii in laba ka mid gantaalada heerka dhexe ee Iiraan lagu weeraray saldhigga military ee ku yaala badweynta Hindiya fogaan ahaana ka fog 4000 oo kiiloomitir. Iiraan ayaa waxay sheegtay inaysan iyadu ka dambeyn arrintan. Wasaaradda difaaca Mareykanka dhaqso ugama jawaabin codsiga Anadolu ee in Pentagon ka jawaabo arrintani. Dhacdada Diego Garcia oo mid ka mid laba saldhig oo markaasi UK u ogolaatay in Mareykanka uu adeegsato qayb ka mid oo la heeda ciidan ee liddigu ku Iiraan. Dhacdadan ayaa si weyn dareenka u soo jiidatay waayo Diego Garcia ayaa waxa ay 4000 oo kiiloomitir u jirtaa ama 2485 mayl Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchina waxa uu sheegay in ridada gantaalada Iiraan kaliya ay gaarayaan 2000 oo kiiloomitir. Wuxuuna intaasi ku daray inaysan Iiraan awood u lahayn gaaridda ridada intaasi la eg. Saldhiggan ayaa waxa uu ku yaalaa bartamaha badda Indiya waxaana si wada jir u wada degan UK iyo Mareykanka. waxaana la sameeyay saldhigaasi 1970kii waxaana loo adeegsadaa bambooyinka ridada dheer iyo waliba howlgalo kale oo istiraatiiji ah. Wasaaradda Difaaca Israa'iil ayaa waxa ay faafisay muuqaal muujinaya fogaanshaha ay gaari karaan gantaalada Iiraan. Muuqaalkan ayaa waxa uu tilmaamayaa suuragalnimada 4000 oo kiiloomitir meesha ugu fog. Tani ay micnaheedu tahay in gantaalada Iiraan ay gaari karaan Yurub oo dhan oo ka mid tahay qaybo ka mid ah UK. Khubarada ayaa waxay u arkaan in ujeedka laga leeyahay in la faafiyo muuqaalkani inuu keenayo saameyn nafsi ah iyo waliba ra'yil caamka Yurub oo wax iska bedela. Iyada ujeedadu ka dambaysa ay tahay
in la tuso Yurub inay khatar ku soo fool leedahay sidoo kale dareenkeeda lagu soo jeediyo in dagaalkani ay soo galaan ay daruuri tahay Israa'iil ayaa sida muuqata dadaal weyn ku bixinaysa xindaabka dagaalkani kala dhaxeeya Iiraan inuu sii ballaarto horey ay dagaalkan ugu soo jiiday in lugaha u geliso Mareykanka oo hadda si uu kaga baxo uu garan la'yahay haddana waxay isku dayeen mar kale inay dagaalka soo geliyaan dawladaha Carabta iyo qaar ka mid ah dawladaha Islaamka ilaa haddana kuma guuleysan haddana doorka waxa uu ku yimi dawladaha Yurub oo ay doonayso inay dagaalka soo geliso wakaalada tamarta nuclearka adduunka ayaa si rasmi ah u iclaamisay inay la socoto warbixinada sheegaya in magaalada Daymoona ee Israa'iil uu ku soo dhacay gantaalkana ayaa waxa uu ku soo dhacay meel u dhow agaarka magaalada Daymoona halkaas oo ku taala xarunta cilmi baarista nuclearka ee Naqab oo Israa'iil leedahay waana xarun aad sir u ah aadna loo ilaaliyo midan oo matalaysa in laga gudbay dhammaan qaacidooyinka dagaal ee caadiga ahaa wakaalada tamarta nuclearka adduunka ayaa waxa ay xaqiijisay ilaa hadda inaysan jirin wax dhib ah oo toos ah ee soo gaaray xarunta nuclearka gudaheeda hase yeeshee waxay adkaysay inay sii wadi doonto ururinta macluumaadka saxda ah oo ku saabsan gantaalka meesha ku soo dhacay iyo weliba xajmiga qarax uu sameeyay madaxda gobolka ayaa u xaqiijisay wakaalada tamarta nuclearka adduunka inaysan jirin wax heerar shucaac mandiqada oo aan dabiici ahayn kadib markii gantaalka halkaasi ku soo dhacay iyada oo haddana si dhow loola socdo oo digtooni leh inuu halkaasi ka dhaco wax sii muuqarsan ee shucaaca nuclearka ah dadka taxliiliya arrimaha ciidanka in halkani gantaal uu soo gaaro ayaa waxa uu yahay gaar ahaan agaarka magaalada Daymoona ayaa waxay tahay fariin siyaasadeed iyo military in gantaalka halkaasi soo gaaro ay macnaheedu tahay in xasaanadii uu lahaa nuclearka ay meesha ka baxday meelaha la bartilmaameedsanayaana ee mustaqbalka ay gubi doonto dhammaan mandiqada oo dhan ugu dambeyn madaxweynaha Mareykanka ayaa sida caadada u ah waxa uu hanjabaad u diray mar kale dawladda Iiraan isaga oo yiri haddii aydan furin marinka Hormuz si dhameystiran 48 saacadood gudahooda waxaan bilaabaynaa beegsiga iyo burburinta xarumaha tamarta ee Iiraan dadka sida dhow ula socda xaaladda Trump ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku jiro xaalad wareer ah ayna sheegeen in 24 saacba uu jeedinayo 10 hadal oo iska soo horjeeda waxayna sheegeen in calaamadaha noocan oo kala ah tilmaamayaan in qofka noocaasi ah la soo diristay xasilooni daro nafeed iyo waliba tabarbeel fikireed